السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta anu waxaan u qaatay maanta dhaqan inay ahayd dhaqankiina wax badan oo ku faraxnay oo xusuus ah iyo walaaltinimo ayaa ka muuqatay waxa uu leeyahay sacad baahiliyay oo abaal baa loo celinayaa anigu ma ahayn ninka dalkan kumana korin mudug anoo yaroo shan jiraan ka tagay anoo shaqeeyaan waan ku soo noqday waxaan markii dagaalada oo annagii aan cidii reerkii xagga u xigsanay dagaalada waligeed socday mar walba waxaan maqli jiray markiiba reer xaaji baa gurmaday 5-7 sida technical dustay oo iyadoo la tashan oo leeyahay soo baxay nimankii laalkasaha waxay mar nagu yiraahdeen maxaan ka heshiinaynaa laba markay iscilaaqda salabaan baa imaanaya annaga nagu yiraahdeen cabda qaybdidana xagga tagnay oo maslaxada u tagnay marka hiilka iyo abaalka iyo waa af qurxinaysaane indhahan ku aragnay dakana maahan waxa weeye waa wax la idinka filahay waana samayseen markii u horeysana maahan waa mar walba maadaama aan xagga u xigno waxaad ogtiin hadiina la soo jabiyay inaad ugu xigtaan oo annaguna aan isla jabayno marka maadaama ay dhaqankeena si fiican u dhacay idinkoo ku mahadsan kan joogaana waa walaalkeen kan soo hadda rabaana waa walaalkeen hadday walaaltinimo u tartamaana kii helana kan kala u hambalyeyn doona hadday iyagu isku gartaana waa la arki jiray waxa jira horta magac noo baxay baa jiray laakiin in reexaaji bixiyeen iyo in kale in la cadeeyaan rabaa sacad sooreed yaa noo bixiyay ya anu ma dadku asabaan oo yaqaan waxa la yiri reer xaaji waa idin bixiyay waxaan ku rumaysanayaa waxaan intaana tagin aan maqli jiray waa abaar baa jirtay beeruhuna ma badnayn oo beeraha Saleebaanka nooga fiicnaa waligeed iyo indhayarta iyo dadka xagga xiga saruur iyo baa wiilashada dadkan kale waxayna u gataan ma ahan oo xoolo keensadaan oo yiraahdaan kugu bedelee rag beer yaqaanada waa dhagax dhulku beeraba ma laha waxa la yiri marka waxa jira bahal anigu waa arko leeyahay qaradameer marka kakoon waa la yiraahdaa marka la dubanahay meesha laga bar kakoon hadaan la dubin waa sun marka la dubaa la cunaa marka waxaan maqli jiray iyadoo leeyahay islaan xaajiyad reer xaajiya waxay tiri dhuluqdaaluq waa u socon jireen sacad iyo daaroode arhabartii kakoon duba tagtaba waa kor rogtaani arooy armaad malaqladaan waa lalmaydaani marka waxaan ku rumeeyay dad geel jiraa oo dab baxay hameenkii arkay iyadoo gaajo leeyahay meesha dabka waxba lagu cunayaa un weeye marka kakoonkaana loo tagay marka way la taliso malaq halaqinay wax walba inaad qaadataan ku dhimanina meesha marka arrintii meesha loo yimid si fiican bay u dhacday oo sidii la maleynayay si ka badan meeshaan quruxda badanna raggii sameeyana waa ku fakiray oo baarkin baaburadii oo dhan aan dhiganayna noo sameeyana waa ku mahadsan yihiin haddee meeshu siyaasad ma ahayn dhaqan bay ahayd dhaqankiina wixii laga filayay iyo wax ka badan iyo walaaltinimo ay dhashay anigu haddee hal la iska almaysto mooye wax kale hadda aan oran karo liibaanna gaar oo amaani maayo anu maalintaan bartay hoobiyo markaas uu airport ka dhisayo Ahmed Abdullahi Faadu sheegay baa iigu horeysay liibaan iyo mar aan badilay leeshir ku qabanay aan barinay NGO-ga noola hadal oo joodariyaal noo keenayo galdago iyo badilay leeshirahay waan ogaay qoor baa inta u yeeru yiri wax qabo marka waxaas uu noo guglayo noo qabtayo adoo xilkii markii wixii nal ka rabay waa nala guday khayr Allah siiyo haddana waa sida aan sheegtay wixii yimaadaba waa noo qayr xaafna raggii intuu dhuusan reeb iska degay oo taladii dhiibay oo siir madaacidu waa ku filanta reer xididka u geeyay inuu qatar ku galay oo سعيد سيال لعرضي
ayada ruuxda waa ognahay abaalkaas annaguna raggii garda duubaan ku jirno iyo wardhiib bahasha fududee bahasha ma fiicne marka waa meel siyaasadeed ma ahan waa dhaqan iyo walaaltinimo iyo wax isku celceshi aad iyo aad baad u mahadsantihiin